madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xilka qaadis ku sameeyay gudoomiyihii maxkamadda sare ee dalka mudane Ibraahim Iidle Suleymaan waxa uuna xilkaasi u magacaabay garyaqaan Baasha Yuusuf Axmed madaxweynaha oo tixgelinaya cabashada muwaadiniinta Soomaaliyeed garsoorayaasha howlwadeennada garsoorka iyo xirfadlayaasha sharciga ee la xiriira in la helo garsoor hufan oo cadaalad ah ayaa go'aansaday in dib u habeyn ballaaran lagu sameeyo hay'adaha garsoorka si muwaadiniinta Soomaaliyeed ay u helaan garsoor hufan oo la isku halayn karo aniga oo ka jawaabaya ballanqaadkii ahaa in la helo nidaam garsoor oo ku dhisan hufnaan iyo cadaalad waxaan maanta xilka gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka u magacaabay mudane Baasha Yuusuf Axmed waxaana gudoomiyaha cusub u rajeynaya inuu ka soo dhalaalo hawlaha loo igmaday ayuu yiri madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne Farmaajo ayaa faray golaha shacabka iyo xukuumadda inay soo dhameystiraan golayaasha adeega garsoorka lana waafajiyo dastuurka ku meel gaarka iyo sharciga dhismaha golaha adeega garsoorka si dib u habeyn dhab ah loogu sameeyo hay'adaha garsoorka dalka gudoomiyaha cusub ee maxkamadda sare ayaa leh aqoon durugsan oo dhanka sharciga ah waxa uuna horay u soo noqday qareen cilmi baare sharci iyo la taliye dhanka sharciga madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u mahadceliyay gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee uu xilka ka qaaday garyaqaan Ibraahim Iidle Suleymaan shaqadii uu soo qabtay qaranka waxa uuna u rajeeyay mustaqbal wanaagsan gudoomiyaha xilka laga qaaday ayaan isagu wax hadal ah ka soo saarin xilka qaadistiisa